shir degdeg oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda beesha Galadi ayaa maanta lagu qabtay Hotel Almaruuj ee magaalada Jidda. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ee ka soo jeeda degmada Afgooye iyo nawaaxigiisa ayaa waxa uu ahaa mid si heer sare loo soo agaasimay. Shirkan maanta jaaliyada Galadi ay ku qabatay magaalada Jidda ayaa waxaa looga hadlayay dhibaatooyinka ka dhacay inta badan gobolada Shabeellooyinka iyadoo dhanka kala taageero weyn loogu muujiyay shirweynaha ka socda magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii shirkaasi ka qayb galay waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dadkiina ka sa taageera fadhigan Baydhabo laga fadhiyo waa fadhiga isin latiin waay haddii rag oo isin haddii hag ka soo baarmay lahaan unu waxaan taageersanaa tan iyo tan unu ma lano suuhay war unu waxaan wanaa digil iyo mirfle waxa la noo rabee inaan kasno dadkayna wixii jariyo hayaan oo hadda in soo kaheen waa inaan kasnaa waxa in soo kaheena wadan jooynay dhacsadaan dadnimadii inay muujiyaan in la ogaado inay dad oo ilaahay abuuri oo dhul leh meel kasta ka soo jeedaan ما إنك باقية مسؤولين تدقل إيا مرفل ميل كست إيروغان أما النوع كست أسئية درجة كست أسئ ليو إنين استئمالنا مسؤولية ديس أدك شعبك وحي إفضايا إنا أسن هجانسمو مش أسن رابطان شيء يريديس إيا أذيك أسن تدسو أذيك سيدي إن أمدا هذه أنت أسروك سيدو أو جليو nin kasto mas'uul kasto nooc kasto u saeeyo oo shirkiisu ku horjeedo codka shacbiga digil iyo mirfle inta meel dagaasmi ka hadalo hayo waa mid us in gaar ah waa mid us dad in adeego hayo soo kulunay meeshaan inaan taageero ka biino shirka ka socdo magaalada Baydhabo marka shirkaas aad aan taageersana barke oni digil mirifle baanganabo digil miriflebo aw shay galadi waaye marka idoo taas ata awadiyad shirkaas oni iskalana wadankayna waaye idna ma ka tuugaano idna ma weydiyaano inaan shirkaas aan taageerno dadkaada waxay ka hadleen macnaha shirka Baydhabo annaga waa taageersanahay sababtoo ah daraada waxa meediyahan ka maqlaynay nin weyn oo dhahayo intuu dad yar isku keensaday برنامج الله ديجل إدامه أنا هدانا وعدان مركي دنا اللي قال لي هاي دامه من نقنينه هدي عيال يرجر أيكو قردرستان والدكو ودعوني لكن هدو أضي وين وكوات كاستقالت كيس والسكاد عنا أنا ما أركن هوي مال وكوتشتي أو أفهيان إسلطان وكدورتي أفهيان نظام كوها الله مجا هويها oo markuu barnaamij kismaayo ka socdo ama Baydhabo ka socdo oo barnaamij la iimaanay joohara u sokayso oo la isku dagaalay xataa ayagoo nabad ka hadlayna arkayn annaga meel lagu doortana ma naqaano hadii barnaamijku digil idaamo u yahay annaga danta waxay noogu jirtaa barnaamijka ka socda Baydhabo hadda taan waxa dhacday in dad ay soo duulaano ummad meel degan ama qowmiyad meel degan ay dulmi ku sameeyaan xoolahoodii dhacaan beerahoodii dhacaan oo macnaha waxyaabo xunxun ay ku sameeyaan ayna dilaan taasina waxaan leenahay dadka dulmaayo iyaga muslimiin ma aha miya dadka dulmaayo culimo ma laha miya dadka dulmaayo akhyaar ma laha miya dadka dulmaayo dad saalixiin ma laha miya alaysa minkum rajulun rashiid oo dad akhyaar meedii ka mid ma ahan miya dadkan qoomiyadaha soo duulay oo dadka ku soo duulay degmo kastaba dadka degan dadaa loo aqoonsan yahay marka dadka ku soo duulay waxaan leenahay dad aqoon-yahan ma lihidiin miya ahlu cilmi ma lihidiin miya bayaankaas ayaan u gudbinaynaa aniga baaqan waxaan u diraa dadka fadhiyo Baydhabo fadhiyaana u diraa dadkooda ha haweeyaano dadkooda yay dayicin barnaamijkaana ha isku tanasulaano waxyaabaha oo macnaha meesha ay ku hayaan macnaha si fiican ha ajandiyalkooda ha u dhigaano dadkooda ha u daneeyano shirkana ay soo qaban qaabiyeen beelaha degmada Afgooye iyo degmooyinka hoos yimaada
ayaa looga soo horjeestay dhibaatooyinka ka dhaca gobolada shabeellooyinka iyagoo dhammaan dadkii kasoo qayb galana ay taageero ballaaran u muujiyaan shirweynaha ka socda magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay. fartuun yuusuf dhakhtar TV-ga caalamiga ee Royal magaalada Jidda.